صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 سنذيو فرض كأوغا فقرا سكذا سيا سنذيو فرض كأوغا فقرا سكذا سيا سقط رحل الكيتوسا ربي أسجود بريا ربي أسجود ركوعا سقط رحل الكيتوسا ربي أسجود بريا ربي أركوع سجودا رمضان 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 كريم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عبادتي بين كور رمين صومك إلهي بين ويدي سنة إن خير كيسا إنه نوافجيه بشهر رمضان. عبادة داسي وعبادة آدياد قيمة بدن قرآن كواماني رسولك صلى الله عليه وسلم حديث دي سنة لغو أماني صومكو ama bisha ramadaan marka ay soo galayso aad iyo aad bay ugu bushaaraysan jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu waayo waa hibo iyo hadiyad weyn oo ilaahay ummadda uu ugu deeqay. dadkii saalixiinta ahaa 6 bilood bay kusii ducaysan jireen inuu ilaahay ramadaan gaadhsiiyo 6 bilood ka dambeeyana inuu ka aqbalo. waxay dareemayeen wax laga yaabo in badan inaynaan inagu dareemaynin oo ah inay sahaydii aakhira tahay cibaadadaas. marka waa ku farxaynaa aad iyo aad baynu ilaahayna u baryaynaa inuu inaga aqbalo. qodobo dhowr ah oo kooban ayaynu wax ka sheegi doonaa oo ku saabsan bishan soomkeeda. qodobka u horeeya waxa weeyaan asraarta ama xigmadaha ama faa'iidooyinka ku jira soomka way badan yihiin dhowr ka mid ah. حكمتهاس waxa weeyaan ama kamida tadriib huwa tadriib ala al-idara ala al-irada. soomku wuxuu qofka carbinaya doonitaankiisa iyo go'aanka uu leeyahay. qofka bani aadamka ana waxyaabaha lagu qiimeeyo waxyaabaha ugu muhiimsan waxa kamida go'aanka inuu go'aan leeyahay oo aanu shaydaan hogaaminayn oo aanay naftiisa hogaaminayn oo cid xumaan wada aanay hogaaminaynin uu naftiisa hagi karayo. sidoo kale waxa weeyaan waa tagliib الروحي على الجسد والعقل على الشهوة. waxa loolan ku jira ruuxda iyo jirka. ruuxduna caalamka sare ka timi jirkuna dhul waxa laga abuuray ciidano lagdan bay ku jiraan. marka ruuxdii baa qaalib noqonayso xoog badanaysa marka uu qofkii soomo. عقلي iyo shahwa lagdamaya ama qofka baahiyihiisi baahidii hunguriga baahidii hamada baahidii hadalka baahiyahaas iyo caqligii oo isaguna ka xakameynaya wixii xun. marka kolkuu qofku soomo waxa xoog badanaya caqligii baa xoog badanaya oo ka xoog badanaya wixii la oran jiray rabitaanka. sidaa daraadeed iyo isagoo arrimaha tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis alqudsigii waxa uu ku yidhi ilaahay uu ka warinayay subxaana wa tacaala ee u bushaareynaya qofka sooman kullu camal ibni aadama lahu ila asiyaam fa inahu lii wa ana ajzii bih. qofka bani aadamka camalkiisa oo dhan isagaa iska leh soomka mooyaane. soomka anigaa leh kana abaalmarinaya. camalka oo dhan ilaahay baynu samaynaynaa caabudaynaa laakiin sidaa gaarkaa waxa ilaahay ugu xusayaa khaasiyada iyo waxyaabaha uu leeyahay dheeraadka ah. waxaynu uga jeednaa daliilku yahay yadacu طعامه وشرابه min ajli. qofkani wuxuu iska daayay
oo go-aan uu ka qaatay cunadiisii iyo cabidiisii iyo shahwadiisii macnaa xaaskiisii uma tegaya ma cunaya ma cabaya intaba waa ka sooman yahay waxaa lagu aamanay go-aanka idan go-aan aada u qiimo badan weeye marka waa tadriib liiraadati shakhs qofka go-aankiisu carbiya marka inaguna waynu isku hadlayn karaynaa qofka go-aanka leh waxaa la yidhaahdaa dadku markay ka warramayaan qofka wallaahi hebel wuu iska wanaagsan yahay laakiin nin go-aan le maaha laakiin taa ay ka daba tuureen way ku baabiiyeen xikmadiisa waxaa ka mid ah huwa taskiyatu linafs nafta ayuu safeeyaa oo u hufaa oo u hagaajiyaa soomku in nafta qofka uu ka adkaado hagaajiyo safeeyana waa waxyaabuhu ilaahay addoonka ku ammaanay qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasallaa waxaa liibaanay baa ilahay uu ku celcelinaya qur-aanka qofka naftiisa nadiifiyey waxa baaba-ay oo halaagsamay qofka naftiisii xumaan dhex dhigay marka haddaad taqaano jidhka iyo dharka iyo guryaha in lagu nadiifiyo maydhitaanka naftuna iyo ruuxduna waa soomka sidaa daraaddeed buu qofkii udgoonaanaya oo uu macaanaanaya markuu soomo waa ka rasuulku tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam alkhaluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi min riixi lmisk qofkaa sooman luunka afkiisa ka soo baxaya ilaahay agtiisa wuxuu ka udgoon yahay cadarka miskiga la ydhaha udgoon baa la sheegaya udgoonkaas wuxuu ka turjumayaa inay naftiisii nadiif noqoto soomka xigmadaha ku jira waxaa ka mid ah ishcaar linicmat illaahi subxaanah macnaha wuxuu qofku dareemayaa markuu soomo ee uu afurayo nicmada ilaahay ayuu dareemayaa cunadii macaankiibaa u dhadhamaya ilaan ina shay-a yucrafu bidid baa la ydhaha shayga waxaa lagu gartaa waxa kasoo horjeeda gaajada iyo dhibka ay leedahay iyo nicmada raashinka qofkii wuxuu ku garan karayaa marka uu soomo ee isagoo aada u gaajaysan oo aada u baahan uu dabeetana macaankii sharaabka iyo cabitaanka iyo cunada uu afka saaro iyadoo naftu jecel markaasuu garanayaa nicmada ilaahay waxaa soomka xigmadihiisa ka mid ah waa cadfun cala almasaakiin walakbaad jaayica wuxuu naxariis u gelinayaa qofka dadkii gaajaysnaa wuxuu odhanayaa allah warshow dad unbay haysatay gaajadani oo gaajo aan maalin xamili waayabaa dadka qaarkood ayaama iyo bilo haysatay walle inaan iyagana u dabco oo aan wax ugu deeqo ayaa waajiba buu leeyahy markaasaas deeqdu ay badataa had iyo jeer iyo waxbixintu bisha ramadaan dhexdeeda xigmadda shanaad waxa weeyaan waa wasiilatu litaqwa alla ka cabsiga ayuu u yahay soomku wado loo maro ama wax lagu helo ilaahay baa qur-aanka ku xusay aayadda ku sugan suuratulbaqara ee ka mid a aayadaha tilmaamaya waajibnimada soomka yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun uu ku cileeyay ilaahay soomka waxaa laydinku waajibiyey si ah ilaahay uga cabsataa markaa masderka iyo meesha laga cabee laga qaato ee laga durduurto shayga loo yaqaano alla ka cabsiga waxa weeye soomka waa gobonnimada waa sharafta waa korukaca waa qiimaha uu leeyahay qofka alla ka cabsigu marka alla ka cabsiga meelaha laga helana waa ka mid yahay soomku xikmadahaasaa ka mid a markaynu intaasoo faa'iidooyinkiisii iyo qaar ka mida qaadanay waxaynu usoo gudbaynaa soomka dhinaca axkaamtiisa soomku waa laba qaybood horta tacriifkiisa iyo tilmaantiisa soomku waa alimsaak cala almuftiraat waxyaabaha qofka ama alimsaak can shay shaygoo qofku uu ka joogsadaa la yidhaahda maryam waxay leedahay inni nadartu liraxmaani sawman falan ukalima alyawma insiya qof la hadli maayo waan ka soomay hadalkii maanta xagga sharcigana waxa weeye cunadii iyo cabidii wixii soomka jabinaya qofku ka soomo tilmaantiisu waa taa wey wuu sooman yahay qof wixii loo diiduu ka soomay laba qaybood wey qaybi waa waajib soomka qaybina waa sunne soomka waajibkii waa 3 qaybood soomka bisha ramadaan soomka kafaara gudka loo soomo iyo soomka nadarka ee qofku ku dhadro intaa wixii ka soo harayna waa sunne sunnahaasina waa badan iyo ilaa 10 nooc ama dhowr iyo 10 nooc oo soomka ka mid ah ayuu nabi maxamed inoo jideeyay calayhi salaatu wasalaam haddii aynu u nimaadno xukumkiisa waa waajib macnaha wuxuu qofku ikhtiyaar u leeyahay inuu iska daayo
ومركو دونان وسكعنا مركو دونان وسكعتها جماعة أركان الإسلام كيبو كميديا سلا قرآن وشيء حديث بدنو نبي كسو جنا أي حصيصة بني الإسلام على 5 حديث كعان كوضع التقانين بكمل الإسلام كي إن شاء الله قولي سي صوم رمضان باكو شري وين سوكو كوبي نايب شهر رمضان فضل بدن بيلاد قرآن كشيء فضل جيسة وحشيء أحاديث النبي فضل جا مواضيع قارة على جو الرمي وإما كوب حمينه فضل جيسة ده وحكم إذا مركو لهاي الشيء إنه تلمامه هبين كأفضل بدن صدح بقول إيه لحدا كمعلومات إنه كتشرو هبين كاد إنه كتشرو بشهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مركا ليلة هبحل فيه ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر هبين كليلة القدر قال لسودة شيء وكتشرو رمضان ولا سودة شيء قرآن كي كريم كهاب فضلgiisa waxa kamid ah inuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam iyadoo ilaahay awliyadiisa uu soo dhaweynayo bisha in albaabada naarta la xidhayo shayaatiinta wax weyn weey albaabadii jannaduna furayn waxa la rajaynayaa qofka dhinta inuu horay ka galo ilaahay idamkii wuxuu ku bushaareeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka bishan sooma in dambigii laga dhaafayo man saama ramadaan iimaana wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa hadiith sahiha haddii dambiga laga dhaafana darajo weyn baad gaadhay soomku waxa uu leeyahay ahkaam inta si ka sii dheeraadaho ahkaamtiisa waxa kamid ah shuruudaha uu leeyahay inaad ogaato shuruudaha uu qofka ugu waajibayo shuruudahaas waxa weey qofku inuu muslim yahay miir qaba oo qaangaara oo aan musaafir ahayn reerkiisii jooga oo caafimaad qaba aan bukin oo daahira oo aan ahayn gabadhii dhiigii caadada iyo dhalmada lahayd lixdaa sharti hadii laga helo uu ku waajibay qofka soomku wuxuu leeyahay arkaan ama tiirar uu ku taagan yahay waa laba waa inuu niyoodaa qofku habeenkii soomka faralka waa inuu qofku habeenkii soo niyoodaa niyaduna ma aha wax badan oo la akhriyo waa go'aan xagga qalbiga an-niyatu mahalluha al-qalb aroorta aad soontidun buu qofku go'aan ku qaadanaya soomka tiirkiisa labaadna waxa weeye al-imsaaku can al-muftaraat waxyaabaha qofka ka jabinaya soomka inuu iska daayo oo aynu xusi doono aadaab buu leeyahay soomku aadaab ajrigiisa ku badinaysa waxa kamid ah suxuurtii oo la dibdhigo waana la cunaya suxuurtii waana la dibdhigaya afurkii oo la dedejiyo qofkoo iska daaya waxyaabihii ajriga sara joogii habeenkii cibaadada loo taagnaa quraankii kariimka ahaa la akhriyay ducadii uu qofku bisha dhexdeeda ducaysanayay siiba marka uu afurayo iyo marka uu sooman yahayba i'tikaafkii masaajidada uu i'tikaafaya siiba 10ka dambe iyo hadii uu kari karayo inuu baytullaahi al-xaraamka ku soo cumraysto intuba daliilay wada leeyihiin dhiri gelinaya waxa aad u muhiim ah inaynu garanno soomka waxyaabaha jabinaya waxa kamida kuwa yaraal isla waafaqsan yahay wixii loo yaqaan cunista iyo cabitaanka ogaan uu cuno cabo qofku ogaan buu u cunay una cabay te soomkii waa ka jabay xaaskiisiiba ogaan ugu galmooday soomkii waa ka jabay ogaan buu isaga huqaaciyay ama bii taranka isaga keenay soomkii waa ka jabaya diintii buu caayay isagoo u kasaya ama ilaahay buu caayay si kale hadaynu dhigno uu gaaloobay soomkii waa ka jabaya gabadha iyadoo sooman baa dhiigii caadada uu ka yimid ama ay umushay soomkii waa ka jabaya arrimaha dhowrka ah ayaa la isku waafaqsan inay soomkii jabinayaan si degdeg ah baan u dul maray marar badan baa culimada ka dhageysateen iyadoo ahkaamtan ay faahfaahsan tahay laakiin muuqaal kooban inay ka bixina ayay ujeedadu ahayd intaasaan kusoo gaabinaya wahada ma aquluhu wa astaghfirullah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم markaynu ka hadlayno bisha Ramadaan ee loo diyaar garoobo qodobada ugu muhiimsan aan ku daray insha Allah ta'ala iyadoo sheekheenu u dhameeyay waa in qofku uu sii niyoodo jaaniska ku soo socda sidoo uga faa'iideysan lahaa inuu go'aan ku qaato nabiga calayhi salaatu wasalaam بعض الأحاديث wax laga wariyay ducooyinkiisa inay kamid ahayd اللهم بلغنا رمضان
baarik lana fi shacbaan waballignaa ramadaan. ilaahayo waxaad na gaadhsiisaa bisha ramadaan na gaadhsii. in loo sii hiloobo oo loo sii xiisoodo oo loo diyaar garoobo waa mid aad iyo aad u muhiima. nabiguna calayhi الsalaatu wasalaam saxaabadiisa waa ugu bishaareynayay aqbala calaykum shahru mubaarak, waxaa idin soo qaabishay bil khayrkeedu badan yahay ayuu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam saxaabadiisa u sheegayay. yaa baagiya alkhayri abshir wa yaa baagiya ashari aqsir, aqbil, ninka wanaag doonayow soo qaabil, bisha ramadaan wanaag doonaya, kii xumaan doonayowna gaabso awli nabigu calayhi الsalaatu wasalaam. wuxuu nabigu saxaabada usii sheegay man xurimaha faqad xurima alkhayru kuluh, ka bishaa la seejiyo wanaaggeeda iyo nafaxaadkeeda iyo naxariisteeda iyo cibaadooyinkeeda in la seejiye khayr oo dhan in la seejiyey. waxyaabaha muhimka ah in loogu diyaar garoobo waxaa ka mid ah marka nafta loo diyaariyo dabadeed acmaasha qofku uu qabanayo in waxa weeye usii diyaar garoobo oo ay ka mid tahay mathalan bisha shacbaan in la soomo, welibana soomkeeda la badsado. caaisha radia allahu tacaala canha waxay leedahay maa ra'aytuhu akhara siyaama minhu fi shacbaan kaana yasuumuhu ilaa qaliila. waxa weeye nebigu bisha ugu soomka badnaa sanadkii marka laga yimaado bisha ramadaan waxay ahayd bisha shacbaan. nebiguna waa soomaya calayhi الsalaatu wasalaam maalmo kooban mooyaane. bal alfaada qaar waxaa ku yimi kaana yasuumu shacbaana kulah, bisha shacbaan dhammaanteed waa soomayay, laakiin looga jeedo badankeeda looga jeedo sida axaadiista kale ay caddaynayso. waxay ka mid tahay in loogu diyaar garoobo cibaadooyinkii la jideeyey. waxaa ka mid ah in loo diyaar garoobo sadaqaadka in la badsado oo wax loogu dhigo lagu talagalo. hadday tahay iftaaru saa'im, afurkaagii inaad intaad badiso dadka kalena aad ka qeyb geliso. nabiguna waa tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam man fatara saa'iman falahu mithlu ajri, qofka afuriya qof sooman kaa uu afuriya ajarkiisa mid lamida ayuu helaya iyadoo kaa ajarkiisa waxba laga nuqsaaminayn. yacni nafsiyan xagga nafta in laga diyaar garoobo, xagga cibaadada hadday tahay shacbaan in la soomo iyo cibaadooyinka la midka ah, salaatuleilkii in lagu sii tababarto loogu diyaar garoobo. xaggii sadaqadii iyo waxbixintii hadday tahay in wax loo dhigo oo loo keydsado, iyo haddii ay tahayba in lasii barto waxbixinta. waxyaabahaas oo dhan wax keenaya bisha sida ugu habboon in looga faa'iideysto. intaasoo dhan waxay kusoo koobmaysaa qofku bishan fadligeeda iyo wanaaggeeda iyo jaaniskeeda inuu ogaado kuna talagalo insha allahu tacaala siday tahay inuuga faa'iideysto. wallahu aclam wsala allahu wasalam calى nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi wasalam.